أولاً waxaan mahad celinayaa dadkii shirkan soo qaban qaabiyay waxaan salaamayaa siyaasiyiinta iyo dhaqameedka waxgaradka haweenka iyo dhalinyarada bahda saxaafadda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa horta hadalkii intii badnayd waa la yiri hadii uu hadal wax tari karo xisaabtan haday noqon karto waa la xisaabtamay laakiin waxaan rabaa Shariif Xasan Sheekh Aadanka العدالة كسوجيسين وحوي هاي نايدين شغمان شريف حسن شيخ آدن لما أقول 19 محلي هذا 2004 طهر مركي ودور شذا يمي تذكر صومالي دوحي رادين والشريف بايمي صومالي هذا توستي عدالة دي هذا يتم شريف مركا وحو النقضي هذا يدين شاقية ودوميه بارلمان كون نقضي annagu waxaan ahayn uu ku soo biiray garabkii Itoobiyaanka la dagaalamay asaguna shaqo kale uu watay oo ahayd inuu beelaha Soomaaliyeed madaxa isu galiyo markaan aragnay dhamaantay iyo intii markaa la dagaalamayay Itoobiyaanka diidanayd ama diidanayd in ciidamo Soomaaliyeed Soomaaliya la keeno sababo badan awgood waxa maanta naga haysta ciidamada shisheeye iyo dagaalkan joogtada ah iyo maxaa la yiraahdo waxaasaan ka fikiraynay isaguna wuxuu u jeeday inuu burburiyo dadka isku diro markaan aragnay waan ka harnay for example waxay ahayd shirkii Suudaan lagu qabtay ay loo isu soo dhawaaday maxaakiimtu qabteen ka saareen maxaa la yiraahdo warlordskii Muqdisho ahayd maxaa la 6 bilood nabad ay ahayd ninkii burburiyo ku yiri hal heshiinina dawladda ardi sababa ula cararay maxaa la yiraahdo meeshii la oran jiray Eritrea horta Shariif Xasan buu ahaa mar labaadkii la isku soo noqdayna anigu waan arkay waxaan kula diriray meeshii Djibouti waxaan ku iri ninkaas ha laga qabto Soomaali waa la iga diiday wuxuu noqday wasiir ku xigeen xildhibaan ra'iisul wasaare ku xigeen wasiirkii maaliyadda xildhibaan intaas saddexdaa jago buu isku haystay wax alla wixii Soomaali soo galay bangiyo u furtay ninkii Shariifka ah madaxweyne Shariif Axmed ahaana god buu ku riday madaxweyne Soomaaliyeed buu horta dilay maalintaas waan aragnay waxaan ka keenay mooshinkii guddiga maaliyadda la xisaabtankan kamid ahaa mooshin baan ka keenay markaan aragnay dalkii meeshu maraayo waa ridnay markaan ridnay waxa la yiri Shariif lama ridi karo beeshan meesha fadhida baan ugu badnay dadkii Shariif Xasan tuurta ku sitay mar labaadkii intaan Mareykan ku maqnay qaarkaya ku maqnayn ayuu wuxuu noqday gudoomiyihii baarlamaanka gudoomiyihii saxda ahaa la inqilaabay haddana baarlamaankii dagaal buu ka bixi waayay furihii baarlamaanku qaatay wuu xiray mooshin baan ka keenay waa ridnay beeshan meesha fadhiday ahay tiitiri baarlamaankii Soomaaliyeed oo dhan Shariif baa ka ahmadeen 550 ka isaga ahaa maxaa la yiraahdo isaga ka cod weyn isagii baa la qaatay oo road mapki ku galay walaalayaal marka Shariif maantana waxa weeye madaxweynihii qaranka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud tala xumada haysata dalka dhibaatada haysata la tabiyihiisa koowaad waa Shariif Xasan Sheekh Aadan weeye marka ma aha only inuu ba iyo bakool dhibaato ku hayee qaranka Soomaaliyeed buu dhibaato ku hayay maanta diyaar mootiin Shariif Xasan inaad dhulka dhigtaan oo diidaan inaad mar dambe soo qaadataan waxa la rabaa marka beeshan iyada ah ama dadka Soomaaliyeed ee meeshan isugu yimi waxaan rabaa in dadka Soomaaliyeed waa dad hal ehela halaf ku wada hadla hal diin leh hal dhaqan leh dadka yare kansarka ay ku jira in laga saaro oo aan u wada tafaxayno qarankii Soomaaliyeed la soo celiyo aan ku tawfiiqsano maanta tan kale Shariif Xasan oo markaad madaxweynaha Soomaaliyeed oo maanta mooshin qaran impeachment maanta ku jira tala xumadaada kula talisayna baarlamaankii Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed intay fadhiistaan dal aanay xukumin iyo dad aanay xukumin oo xamar ba xukumin inay mooshin ka keenaan oo dalka Soomaaliyeed colaad ku jiro Shariif Xasan ka laga dhageystay oo maanta taasameeyo horta cadaalad kama sugaysaan wixii kale aan qaban karno Soomaalinimo iyo dadnimo ku qaban karno aan ku qabanno waxa weeye marka Xasan Maxamuudna baaq looma dirayo maanta isaga la tiisi haysata oo maanta impeachment ku jira
impeachment-kuna wuxuu kaga yimi cadaalad darradu Jubbaland ku sameeyay oo xildhibaanadoodii ayaga soo dhisteen yiri waxba kama jiraan taladii Xasan Shariif Xasan maanta meesha dhigtay wuu arkaa maantana waxa weeye waxaan rabaa beelaha Soomaaliyeed walaalaheena ee degaba iyo Bakool iyo Shabeellada Hoose inaan u sheego dad walaalihiina nahay waxaan rabnaa qarankii Soomaaliyeed inuu dib isugu soo noqdo maamul qabiili waxba ma taro waxaan rabnaa dadkii walaalihiina ay saddexda degmo oo maanta la soo sheegay Aalta iyo Ceel Berde iyo Tayaglow miya yeed inaad xaqoodii siisaan xuquuqdoodii siisaan waaxad degmadiiba waa 3 xildhibaan Soomaa degmadii waa 4 xildhibaan Soomaa marka waxa weeye 12 weeye Soomaa iyo 15 xildhibaan bay xaq u leeyihiin marka 15 koodii xildhibaan inaad siisaan oo aydan idinkuna noqon maamul qabiila aydan noqonin waa in laga shaqeeyo Shariif Xasan inaad iska qabataan ayaan soo jeedin lahaa waayo xaq uma leh inuu maxalaya markasta idintu idin horboodo uu jar idinka tuuro maamulkiini burburiyo dadnimadiini burburiyo meesha Soomaali dhigayna waad ogtihiin waayo waxa idinka hiiliyay dawladda federaalka idinka hiilisay oo dhakada idinka soo saartay maantana dadkii walaalihiin ahaa buu rabaa inuu idinka saaro waad u jeedin dadkii deegaanka soo jeeday inay leeyihiin 3 wada noo furan inaan Hiiraan ku darsano iyo inaan ku darsano Jubbaland iyo inaanu maamul goonidooda isu taaga inaanu nahay because waxaba ku tusinaysaba de haddaba waxa la dhisay maamul hal degmo iyo hal gobol iyo badha la dhisay marka haddii dastuurkii la bridge gareeyay oo ay Soomaali ku heshiin weydo intii dastuurka ku qornayd la sameeyo de jidka waxa loo xaarayaa inay maxal qolo waliba inteeda maamul qabiilaysan la sameeyo marka waxa weeye Shariif Xasan ma ka yeelayno inaad dadka dulanto ma ka yeelayno inaad curaan u haysato 3 gobol ee Bay iyo Bakool iyo Shabeellada Hoose waa tii kuugu dambeysay maanta shalay baan cadaalad darro lahayd oo dad aad ka keentay mooshin oo cadaalad darro baarlamaanka federaalku qaar halka fadhiyaan ay ku sameeyeen oo codeeyeen ay yiraahdeen inay u burburiyaan marka walaal waxayna historygaaga hadaad ka waantoobi weydid meesha lagugu imaanaya Soomaaliya kuugu imaanayso oo ka qaadayso rag dadkaad horboodayso xoog ku haysatid ba kuugu imaanaya waxa weeyaan enough is enough Puntlandna baaq baan u dirayaa Shariif Xasan waa inaad aydan mar dambe soo xambaaran waayo waa abeeso hadaad ilmahaaga la seexiso waa cunaysaa ma gasho maxaa la yaabaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.